السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالي ونكسر داود كسر وهذا المقال كان عصب weerarkii xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar iyo jawaabta ay ka bixisay Israa'iil ayaa waxaa ka dhashay dhimasho, burbur iyo dibadbaxyo daafaha dunida ka dhacay. Dibadbaxyadan waxaa lagu arkaa dadka haddii ay Carab yihiin haddii kaleba iyagoo xiran cimaamada dhaqanka ee loo yaqaano kufiya. Dadka qaar ayaa qoorta ku duubtay halka kuwadan ay madax saarteen. Waa arrin aan la iska indhotiri karin, waana wax ka qaro weyn maro dunka samaysan. Dad badan oo Falastiiniyiin ah waxay u arkaan aalad dhaqan iyo mid siyaasadeed, astaan hardaan iyo iska caabin. Waa aalad dhaqan iyo mid siyaasadeed oo soo jirtay boqolkii sano ee la soo dhaafay. Waxaa lagu tilmaamaa calanka aan rasmiga ahayn ee Falastiin. Xaggee ay maradan ka timid? Goorme ayay astaan noqotay? Maantase muhiimadda intee leeg ayay leedahay? halka ay ka soo farcantay maradan inkastoo aysan cadeen halka ay ka timid asal ahaan, taariikhyahanno badan ayaa soo jeeday in loo nisbayn karo qarnigii 7aad, gaar ahaan magaalada Ciraaq ku taalla ee Kufa sida ay magaceedu ka muuqato ee Kufiya. qaar kale ayaa soo jeeday in asalkeedu intaa ka weyn tahay, xitaa ka hor islaamka ay jiri jirtay. runtuse waxay tahay in sanadihii la soo dhaafay aad ugu faafay isticmaalkeeda, balse qasab maaha in loo isticmaalo keliya dhaqan ama siyaasad ahaan. bilowgii qarniga 20aad cimaamadan ayaa waxaa inta badan xiran jiray carabta reer miyiga ah si ay isaga ilaaliyaan kulaylka qoraxda, dabaysha, ciidda saxaraha amaba qabowga. magaalooyinka ayaa si kastaba aysan ku badnayn inaad aragto Falastiiniyiin xiran cimaamadan. waxay door bidaan inay xirtaan dharka casriga ah ee sida fez oo sidoo kale loo yaqaano tarbuush. waa dhar guduudan oo uu soo caanbaxay xilligii hoggaaminta Cusmaaniyiinta ee Maxamuud, balse baaritaan la sameeyey ayaa sheegay in sanadkii 1930 ay cimaamadan micno gaar ah u samaysay bulshada Falastiiniyiinta. tan sababteeda ayay kor u kacday isticmaalka cimaamadan. kacdoonkii 1936 sanadkii 1930 geyga Falastiin waxa uu ka hoos jiray maamulka Biritanka kadib dagaal koowaad ee adduunka. maamulkaas oo waqtigiisu intii u dhaxaysay 1920 ilaa 1948 taasoo aysan ku farxin Falastiiniyiinta. waxaa intaa dheer inay u arkayeen in Britain ay taageersan tahay Israa'iil. waxaa intaasi dheer in xilliyadan bariga dhexe ku soo badanayay dadka Israa'iiliinta. sidaas darteed waxaa kordhay kacdoonka carabta ee socday 3 sano laga bilaabo 1936 ilaa 1939 waxaana ka dhashay isku dhacyo. isku dhacyadan waxaa door weyn ka qaatay cimaamadan. waxay ka dhigan tahay cimaamadan waxay leedahay noocyo kala duwan, midabo kala duwan, balse tan aadka loo isticmaalo ayna u badan yihiin Falastiiniyiinta ayaa ah madow iyo caddaan. waxay leedahay 3 shay. caleemaha geed saytuunka waxaa lala xiriiriyaa in geed saytuunka ee gobolka iyo xiriir uu la leeyahay dhulkaasi. calaamadda guduudan waxay astaan u tahay kalluumaystayaasha Falastiiniin ee xiriirkooda badda Mediterranean-ka. laymanka madow waxay astaan u yihiin marinada ganacsiga ee saaxiibada deriska la ah ee Falastiin. sanadkii xigay kacdoonka, cimaamadan kufiya ayaa ku sii baahaysay Falastiin iyadoo uu noqday astaan. taariikhyahanada ayaa isku raacsan in ay sidoo kale la xiriirto nabka amaba duufaan. markii boqolaal kun oo Falastiiniyiin ah ka barakacay amaba ay noqdeen inay ka qaxaan dagaalka horseeday dhismihii Israa'iil 14 May 1948. nabka waa taariikhda ugu murugada badan ee Falastiiniyiinta, balse sanadkii 1960 ayay cimaamadan caan ka noqotay dunida. qofka sabab u ahaa in cimaamadan eegayga dunida caan ka noqoto ayaa ah Yaasir Carafaad. Yaasir Carafaad waa madaxweynihii hore ee Falastiiniyiinta. asaga ayaa sabab u noqday in dunida ay ku faafto cimaamadan aadna loo isticmaalo, aadna ay caan ugu dhex noqoto. aad iyo mahadsan daawada fadlan u soo bir.